caafimaadku waa udub-dhaxaadka nolosha. Howlwadeennada caafimaad ee ka howlgala isbitaalka Kalkaal waxay had iyo jeer diyaar ku leeyihiin soo dhoweyn diiran iyo daryeel caafimaad oo tayo sare leh. Isbitaalku wuxuu hoos u dhigay baahida caafimaad ee ka taagneed gudaha dalkeenna, iyadoo sanadihii la soo dhaafay isbitaalka Kalkaal uu boqolaal qof u sameeyey qallimada casriga ah ee beddelista jilbaha iyo simaha, taasoo keentay in duqoy badan ay sanado badan kadib dib u helaan socodkooda. Isbitaalku wuxuu leeyahay qaybaha bukaan socodka noocyadooda kala duwan oo ay ka mid yihiin qaybta daaweynta neerfaha, qaybta maqaarka, qaybta la tacaalista xanuunada carruurta, iyo sidoo kale qaybta haweenka. Isbitaalku wuxuu caan ku yahay daweynta dhalmalaanta ragga iyo dumarka, iyadoo ay ka howlgalaan dhakhaatiir khibrad sare u leh. Isbitaalka Kalkaal wuxuu leeyahay qaybta NICU, taasoo lagu daryeelo dhallaanka loona qaabiyey si heer caalami ah. Loola caddayntu waa qayb ka mid a quruxda, sidaa darteed isbitaalku wuxuu caan ku yahay daweynta iyo qurxinta ilkaha, halkan oo ay diyaar kuugu yihiin dhakhaatiir khibrad sare u leh. Isbitaalku wuxuu kor u qaaday tayada shaybaarka isagoo soo kordhiyey mashiinno casri ah, taasoo u sahlaysa bukaanada inay ka maarmaan baaritaanada dibadda loo aadi jiray, iyadoo sidoo kale isbitaalku u keenay dalka dawooyin tayadoodu sarrayso. Kalkaal Hospital wuxuu ku yaalaa waddada Banaadir ama kala xiriir namarka gaaban ee ah 44.